kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal waa habeenimo Isniin ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha 3 ee Maarso sanadka 2020 qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka bandhiga mudiirka waxaa kamid ah dawladii ugu horeysay ee dunida oo gaadiidkeeda lacag la'aan ka dhigtay sidoo kale daawadayaal waxaynu idin haynaa caawa wada fudud oo adigoo gurigaaga jooga aad ku ogaan karto in viruska corona uu ku hayo iyo in kale intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada hadii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambaleelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan faalo inooga reeb ugu horeyn inta aan barnaamijkeena gudagalina waxaynu idin karaala gelinaynaa kala maqnaashihii muddada aan kala maqnayn ciladdankii waliba kumeetarada aynu ku kala maqnayn balse hadda ciladaas waa aynu hagaajinay saacaan wixii ka bilowdo insha Allah taala barnaamijyadii aan nooga barateen waa daawad doontaan adinkuna waad ku mahadsantihiin qaabka aad inoo daawataan kun iyo kow jeer sidoo kale daawadayaasheena waxaynu ogeysiin doonaa in barnaamijka ciyaaraha janalka Xareed Media hal habeen oo qura in aynu ku soo koobnay laba habeen oo bixi jiray balse hal habeen oo qura aynu ku soo koobnay wixii ciyaaraha soo kordhana barnaamijka bandhiga mudiirka ayaad ku daawan doontaan daawadayaal waa tahay daawadayaal markana waxaynu gudgalaynaa barnaamijkeena qodobka ugu horeeya waxa uu noqonayaa dawladii ugu horeysay dunida ayaa gaadiidkeeda lacag la'aan ka dhigtay go'aan noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa oo kala ah ee dunida laga hirgeliyo isla markaana ah mid taariikhi oo cusub gaar ahaan dhanka gaadiidka dadweynaha u gaar ah Luxembourg ayaa bilowday sabtidii inay dhaqan geliyaan siyaasadda ah in gaadiidka dadweynaha laga dhigo mid bilaash ah waana dawladii ugu horeysay ee dunida oo dadweynaha dalka u dhashay iyo dadka booqashada ku joogaba ay si bilaash ah ku raaci karaan gaadiidka si aan kala sooc lahayn xukuumadda Luxembourg ayaa go'aankan uga gol leh inay ku dhiirigeliyaan dadka gawaaridooda gaarka ah isticmaala si ay u raacaan gaadiidka dadweynaha arintaas oo xal u noqonaysa ciriiriga wadooyinka ka jira oo maaro loo leeyahay gaar ahaan magaalada Luxembourg ee caasimadda ah magaalada Luxembourg ayaa waxa ka jira ciriiriga ugu daran adduunka magaaladan oo ay ku nool yihiin 110,000 oo qof ayaa waxa dibadda uga yimaada oo u soo shaqo doonta 400,000 oo qof oo shaqo u yimaada lacagta gaadiidka lagu raaco markii horeba qaalima aan ahayn safar muddadiisu tahay 2 saacadood tikitka aad ku raacaysa waxa uu ahaa 2 euro oo kaliya maadaama wadanka badkiisa uu iska yar yahay oo uu ku fadhiyo 260 kilomitir oo isku weer ah halka safarka darajada koowaad ee VIP-da aad ku raacayso 3 euro ilaa iyo waliba 4 euro oo maalin dhameystiran ah si kastaba gaadiidka ayaa bilaash wada ahayn rakaabka darajada koowaad ee VIP-da waxay iska bixin doonaan khidmadda adeegan oo markii horeba iska raqiis ahaa Luxembourg waxa la gawaarida lacag la'aan laga dhigay dadka gawaarida lacag la'aan ku raacayaan laakiin qofka meel maalin u safraya lacagtiisa ama wuxuu la baxaya qarashka looga baahnaa ee lagu raac lahaa gaarigaasi wili waxa daawanaysaan barnaamijka bandhiga mudiirka balse qodobka ugu dambeeya ayaynu daawadayaal idin soo baahinaynaa qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay wada fudud oo adigoo gurigaaga jooga aad ku ogaan karto in viruska corona uu ku hayo iyo in kale dunida waxaa farabaan ku hayo cudurka coronavirus
kaas oo wadan walba uu ku jiro heegan iyo waliba iska difaacis marka wada waxaan ku hayaa ku sahlaysa adigoo gurigaaga jooga in aad iska ogaan kartid inuu virus ku hayo iyo in kale dhaqaatiir ku sugan Taiwan ayaa dahrogay hab fudud oo adigoo gurigaaga jooga aad ku ogaan karto in uu ku hayo cudurka dilaaga ah ee waayihii dambe dunida sida aadka ah ugu faafsanaa ee coronavirus janalka Al Arabiya ayaa dhaqaatiirtan ka soo xigtay talaabooyinkan sahlan oo lagu ogaan karo cudurka coronavirus si mug leh neef u qaado muddo 10 ilbiriqsi ah isku day inaad hawada jiido haddii aad ku guulaysato oo aadan dareemin ririxyo daal iyo neefta haddii ay kugu dhagto waa arin ku tusinaysa inaan sanbabahaagu qabin pulmonary fibrosis oo calaamad u ah coronavirus waxaa lahay 10 daqiiqo muddo ah inaad neefsatid baa laga rabaa haddii aad neefsaad awood u yeelatid inaad jiidid oo aadan la kulmin wax ririxyo ah ama neefta oo kugu dhagayso pulmonary fibrosis oo calaamad u ah coronavirus ma qabtida loola jeeda bay dhaheen dhaqaatiirtu dhaqaatiirtu waxay ku talinayaan in subax kasta baaritaankan aad isku samayso oo habo nadiif ah aad qaadato gaar ahaan marka aad joogto goob cudurka looga shakisan yahay dhaqaatiirtu waxay dhaheen subax kasta waa inaad baaritaankan aad ismarsiisaa markii aad joogto waliba goob looga shakisan yahay in cudurka coronavirus uu ka jiro 10 daqiiqo neef jiid haddii neefta aad kala kulanto ririxyo iyo waliba daal neefta kala kulanto cudurka ku haya laakiin haddii aad kala kulmayso wax xiriiri ah marka coronavirus calaamadaha lagu garan karo kuma haya ay leeyihiin dhaqaatiirtu sidoo kale hubso in afkaaga iyo waliba dhuuntaaduba ay qoyan yihiin mar walba isku day inaad biyo cabto si nidaamsan 15 daqiiqo oo kasta si aad cudurka uga dhowrsato 15 daqiiqo kasta waa inaad biyo cabtaa si aad cudurkaas oo gaashaamato baa la leeyahay waxaa xusid mudan in tirkoobyadii ugu dambeeyay ee dhawaanahan soo baxay ay sheegayaan in xaaladaha dadka uu virusku ku dhacay daafaha kala duwan ee dunida ilaa iyo hadda laga diiwaan geliyay ay gaarayaan 276,665 case waxaana hadda lala tacaalayaa 173,292 bukaan oo 165,378 ka mid ahna ay xaaladooda tahay mid iska caadi ah halka 7,914 ay halis ugu jiraan caabuqaan sida daran u faafa sidoo kale waxaa la soo afxiray ilaa iyo hadda 103,373 case oo 91,954 ka mid ahi ay caafimaadeen halka 11,419 ka soo hartayna ay cudurka u geeriyoodeen haddaba daawadayaal ilaa iyo hadda waxaa u geeriyooday caabuqaan tiro ka yar 5%. waxaa halkan inooga cad in caabuqan uusan ahayn mid sida uu u faafo wax u halakeeya haddii aynu Soomaali nahay cudurkaas Allah naga badbaadiyo wiil waxaad daawanaysaa barnaamijka bandhiga mudiirka janalka xareed meydina waad ka daawanaysaan daawadayaal gunti oo gabagabadiina barnaamijkeenana waa aynu isla soo gaarnay daawadayaal guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen xareed media intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu